aad baad u salaamintiin dhammaan akhyaarta sharafta leh ku soo dhawaada wax ka bara channel muuqaalkan maanta waxaynu kaga hadli doonaa sida loo joojiyo jacaylka qof aan ku jeclayn. sababta aanad u joojin karin jacaylka qofka aad jeceshahay inkastood og tahay baynaanad heli karin waxay tahay maskaxdaada oon si buuxda u aqbalin in xidhiidhkaasi dhammaaday. inaad aqbasho in qofka xidhiidhkiinu dhammaaday waxay kuu suurtageli kartaa oo keliya markay maskaxdaadu si buuxda u aqbasho in xidhiidhkiinu aanu sidiisii hore marnaba ku soo noqon karin. waxyaabaha ugu badan ee ka hor istaaga inuu qof joojiyo jacaylka uu qabo qof kale waxaa ka mid ah isagoo sameeya waxyaabahan soo socda. qofkoo sawirtaa xusuusihii hore fiicnaa. sawirashada xusuusihii hore fiicnaa waa waxa ugu badan ee kugu sababaya inuu qofku maskaxdaada qabsado. inta badan ee aad sawirato qofkii aad jeclayd waxay badinaysaa inuu qofkaasi wax badan maskaxdaada sii haysto, adigoo weli haya waxyaabo badan oo qofkii ku xasuusinaya. markaad hayso waxyaabo badan oo ku xasuusinaya qofkii aad jeclaan jirtay sida hadiyadaha, messageska, emailada, sawirada iyo wixii la mid ahi, waxaad maskaxdaada u diraysaa fariin ah inaanay bogsan. maskaxdaadu waxay bilaabi doontaa oo keliya inay ka bogsato qofka aad jeceshahay markaad samayso ficilo caddaynaya in xidhiidhkaasi dhammaaday, adigoon qofka si toos ah u waajihin welina rajo qaba. inaad bogsataa waxay dhici kartaa oo keliya markaad rajada tirtirto. inta aad weli rajo ka qabto qofkii aad jeclayd waxaa aad u adkaanaysaa inaad ka bogsato qofka jacaylkiisa, adigoo niyeysta qofkii oo aad wada joogtaan mar labaad, adoo qofka xogtiisa daydaya oo isku daya inaad informationkiisa hesho. markaad qofka isku daydo inaad informationkiisa hesho waxaad maskaxdaada si aan toos ahayn ugu sheegaysaa in qofkaasi aad kuugu muhiim yahay. taasina waxay sababaysaa inaad qofkii ku xidhnaato, adoo saaxiibada iyo dadka kugu dhow uga sheekeeya qofkii aad jeclayd. markaad ka sheekayso qofkii aad jeclaan jirtay waxaad maskaxdaada ku brograaminaysaa inaad qofkaa wax badan sii jeclaato adoon ka warhayn, adoo diida inaad dib u soo celiso noloshaadii bulsheed ee caadiga ahayd. inta badan ee xidhiidhkaaga bulshadu aanu caadigiisii ahayn waxay sababaysaa inaad noqoto mid si aad ah ugu xidhan qofkii aad jeclayd oo keliya. habka keliya ee aad kaga baxsan karto arrintanna waxay tahay adoo dib u soo celiya xidhiidhkaagii aad la lahayd bulshada. dhammaan waxyaabaha oo uu qofku si joogto ah u sameeyaa waxay ka hortagaan inuu qofku aqbalo in xidhiidhkii halkaa ku dhammaaday. haddii aad rabto inaad ilowdo qofkaa jacaylkiisa waa inaad qofkaas si toos ah u waajahdaa, islamarkaana aad hubsataa qofkaasi inuu rabo inuu xidhiidhkiina sii wado iyo in kale. haddii aanu rabin inuu sii wado waa inaad aqbashaa in xidhiidhkaasi halkaa ku dhammaado. waxa labaad ee ay tahay inaad samaysaa waa inaad dhiliid garayso oo aad tirtirto messageska, emailada iyo dhammaan wax kastoo ku xasuusin karo qofka. inaad sidoo kale ka hor tagto inaad qofkaa ka fikirtaa waa arrin kaloo muhiim ah. waan ogahay in mararka qaar qofka ka fikirkiisu uu kuugu soo dhacayo si aanad kantarooli karin, balse ugu yaraan waxaad joojin kartaa in fikirkaasi kugu sii weynaado. dhammaan ficiladani waxay maskaxdaada ku qancin doonaan in xidhiidhkaasi dhammaaday, waxaanad awood u yeelan doontaa inaad joojiso qofka jacaylkiisa. miyuu jiraa qof kaloo ka fiicani? mid ka mid ah waxyaabaha ka hor istaagi kara inaad ilowdo qofka aad jeceshahay waa adigoo aamina in qofkaasi ahaa ka keliya ee aad jeclaan karto. haddii aad u malaynayso in qofkaasi ahaa ka keliya ee aad jeclaan karto, weydii naftaada su-aashan: miyuu jiraa qof kaloo adduunka jooga oo ka fiicani? xataa haddii aanad helin qof kaloo ka fiican, ogow inuu jiro qof kale oo ka fiican oo aanad weli la kulmin. waxaan ku hubaa waxay tahay in qofkaasi aanu ahayn qofka ugu fiican adduunka, sababtoo ah haddii uu ahaan lahaa qof kastaaba u jeclaan lahaa. xaggii aad murugoon lahayd ama aad niyad jabsanaan lahayd, u ballanqaad naftaada inaad heli doonto qof ka fiican qofkan. ballanqaadkani wuxuu kaa caawin doonaa inaad meesha ka saarto fikraddan beenta ah ee ah inuu qofkaasi ahaa ka ugu fiican adduunka, waxaanad awood u yeelan doontaa inaad joojiso qofka jacaylkiisa. waxaan rajaynayaa in talooyinkani ku caawin doonaan. like saar, subscribe saad ula socoto muuqaalada dambe, sidoo kale la wadaaga asxaabtaada. tan iyo kulankeena dambe haddii Allah awooda leedmo. nabaday.